عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaantiina meel walba joogtaan waan salaamay. usoo dhawaada channelka Taqwa Soomaaliya channel oo ah bisha Ramadaanka. haduu Ilaahay yiraaho bisha Ramadaanka oo dhan 30 beri waxaan ii soo dayaa 30 oo nabi aan ii soo daana qisadiisa iyo waxyaalaha sameeyay iyo waxyaalaha oo markaasi ka fahmi karin amba yani darsi ka qaadan karno amba iskala aan nolosha ku sii wada karno insha Allah taala. maalin walba nabiga soo saara haduu Ilaahay yiraaho sida anigana si fiican u fahmo inagana si fiican u fahantiin oo kulligeen ajir noogu noqdo. dhammaan inta oo familka Taqwa waxaa ka codsanaa in si share gareeyaan barnaamijka. inta dhageysanayso cusubna soo dhawaada Ramadaan wanaagsan siina share gareeya sida dhamaanteen u ajreysano. Ilaahay ajirka laga aqbalo, soonkii salaadana Ilaahay naga aqbalo. marka maanta iyo nabiga ugu horeeyay oo baranayna waxa waay aabaheena Aadam alayhi salaam. Aadam alayhi salaam marka uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala abuuraaye wuxuu u sheegay malaa'ikta wuxuu u dhahay inuu abuuraayo qof oo dhulkana khaliifad ugu dhigayo. markaas malaa'ikta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu jawaabtay bismillaahir rahmaanir rahiim ataj'alu fiha man yufsidu fiha ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى سيدا وأغنها الملائكة مع سيسو عاصم معهن إن إلهي عابدو بس وجوكتها ما هنا يعني إلهي سبحانه وتعالى بس عابدان ملائكتنا قلب مكدعو. markaasoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahyay aw malaa'iktu u sheegay inuu abuurayo qof oo ka abuurayo tiin amba ciid oona markaasi ruuxa oo ku afuufayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala malaa'iktu markuu u sheegay inuu abuurayo qof oona ka abuurayo ciid amba tiinka ka abuurayo oo markuu ku afuufo neefta oo ku afuufo inay malaa'ikta laazimta amba waajib ku tahay inay u sujuudaan. sujuuda inta ma ahan sujuud oo cibaada aan kala fahano, waxa waa sujuud takriim waaye inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala awood leeyahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisa abuuray ibn aadamka oo haddana abuura oo naftan ku afuufay. marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku amray malaa'ikta inay u sujuudaan marka oo abuuro qofkaasi. markaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamac Allah allahay qabda hada Soomaaliga aqalaan qabda waxa laha gacanta sida marka gacanta amala oo malaha qiyaaskiis laakiin Allah subhanahu wa ta'ala a'lam oo soo qabtay oo midabka madow cad jaalo guduud sida hada dadka midabyasha dadka hada way kala duwan yihiin sida wada u jeedna hada Ilaahay subhanahu wa ta'ala wada abuuray. markaasi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidaasi oo wuxuu ku daray biyo ku daray markaasi waxay noqotay salsaalan min hama'in masnuun. isku wada tageen markaasi waxa ka soo baxay raa'ixad ka soo baxday markaasoo ibliis soo agmaray asoo fiiriyay yani si yastiin amal oo u fiiriyay ciidaasi yani oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sameeyay amal maxaa saas amal yastiin amal oo fiiriyay. فصلصال كان عند سكال عيداني يا إلهي سبحانه وتعالى أو كأبور النبي الله آدم عليه السلام أو نقسمي جعنتيسا مركزك أفو في نافتا فجسدك عند سكال جركا أو نبي الله آدم عليه السلام أن نحصدي مركز آدم إنه يسمركو فري أو أركب ملائكتي لن أود سجود سن لكن إبليس سجود سنين. فآيداس دليل كأنه حواي بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. سؤال على قوريه كاسو إبليس كجوابي رد أم بجواب أو حائه حاسد نمو أم بحقد على آدم يعني نعيب وآدم وقبو يحاسد نمو مركاسو حولهاي قال تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تين. مركاسو إله سبحانه وتعالى أو كو أمري إنا إبليس لبريو
markaasi aayadan iidana soo degtay oo ah qaala allah tacaala qaala fakhruj minha fa inaka rajiim, markaasi oo lacnad ilaa yowm alqiyaama, oo lacnadan waxaa laga wadaa qofka laga dheereynayo raxmada ilaahay subxaana watacaala, ilaahayna nagama wada dheereeyo. Markaas oo ilaahay lacnaday ibliis. aadam calayhi salaam nicknamekiisa ambiskale laqabkiisa waxaa waa abu albashariya, oo laga wado aabaha iyo hooyooyinka inta ummad caalamka ku wada nool. ilaahay subxaana watacaala waxaana waa qofka ugu horeeyo ilaahay subxaana watacaala oo abuuro, oona ku abuuro gacantiisa, oona ka abuuro ciid, oona ku amray inay ruux lagu nafaqo. markaasa waxaa la khalqay aadam calayhi salaam. markaa la khalqay kadib waxaa la khalqay hooyadeena xawaa, oo iyadana markaasi la khalqay. markaasoona wuxuu wada dejiyey jannada. markaasoo ilaahi subxaana watacaala wuxuu dhahay inay jannada ku istimtaacaan ama waxay rabaan ka cunaan, meeshay rabaan ka socdaan, waxay rabaan maalin kasta ka cunaan, laakiin ay u dhawaanin hal geed amba hal shajarad, inay u dhawaanin. shajaradii ibliisa imaaday, ibliisa waswaasiyey shajaradaas. wuxuu dhahayay yani ilaahay subxaana watacaala maniigu diidan shajarada, wuxuu niigu diiday inay khaalidiin ku noqotiin jannada. markaase adiga shaydaanka markuu waswaasiyey oo ilaabeen sayidina aadam waxawaa ilaahay amarkiisa ilaabeen, markaase shajaradii ay cuneen. markaasi oo ilaahay subxaana watacaala oo markuu dhahay aadam calayhi salaam maxaa u cunta shajaradani, oo asagoo naadim umaaday oo ka toobi keenay oo ilaahay toobadiisa ka aqbalay, markaasaa dhulka loo soo diray. markaasi nolosha ay wada bilaabatay. aadam iyo xawaa dhulka markay usoo wada degeen, markaasay nolosha wada bilaabatay. ilmo badanay dhaleena la dhahay aadam iyo xawaa, laakiin cadadkooda lama oga ilaa hadda. ilmaha dhan oo aadam iyo xawaa calayhim assalaam ee dhaleena qur-aanka ma wada sheegin, wuxuu sheegay qaabiil iyo haabiil. marka culamada waxaa dhahday qaar waxaa dhaheen aadam calayhi salaam wuxuu lahaa ilmo aad iyo aad u wada badan, ka daliilsadeen qowl allaha tacaala yaa ayuha الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. آدم عليه السلام ما dhimanin ilaa oo ka arkay awlaadiisa, awlaadiisii dhaleen ilaa adiga awlaadiisii dhalay awlaad yani nasab badan ilaa 400 oo yani qabiil amba 400 oo cunug oo asaga yani ilmihiisa sii dhadhaleen ilaa oo ka arka ma dhiman, siday u sheegeen culimada. wallahu tacaala aclam. sayida xawaa amba hooyadeena xawaa mar walba waxay dhali jirtay, waxay qaadi jirtay uur oo waxaa ahayd mataano, wiil iyo gabar, wiil iyo gabar, wiil iyo gabar, saasay u dhali jirtay. sidee wiilkan iyo gabadhaani u guursadaan wiilkii gabadha kadana ee dhali doonto, ilaah subxaana watacaala xikmad markaas ogyahay waay oo ku abuurantay ummadaani dhan. marka ilaah subxaana watacaala labada cunug oo labada ilmo oo oo qur-aanka sheegay oo qaabiil iyo haabiil qaabiil waxaa raba inuu guursado haabiil walaashiisa, لأن آدي أقرحونات. مركز وحو أتجي سيدنا آدم عليه السلام وأتجي مركز وحو لها قفل بقربانها قاده قربان كاسن إله سبحانه وتعالى ها تقربته أم بها أو دواته قفكو إله سبحانه وتعالى قربان كاسك قاده قفتان كلا جور سنايو كاسا قابيل وحو سميي وحو جي قربان أو يعني زرعيس الردئي هاي أم بسكري يعني سفي عماه أم سيد الربماهن، لكن هابيل وحو جي مد زرعيسة أو يعني سمين يهو هنيء يهو فيعن مركاسان نار تسود دقتي مركي نار تسود دقتي هابيل أي قادتي قربان كيسا waxaana laga wadaa markaasi inuu ilaahay subxaana watacaala oo ka aqbalay haabiil qurbaankiisa oona ka aqbalin
qurbaanka oo qaabiil. Markaasoo aad iyo aad u karahsada walaalkiisa oo xiqid qalbigiisa galay, wuxuuna ku ballan qaaday inuu dili doono walaalkiisa haabiil sida u aroosin walaashiisa. markaasuu u tagay haabiil wuxuu dhan waa ku dila. markaasoo haabiil wuxuu dhahay ولئن هممت بقتلي فلن أرد عليك بالمثل وأحاول قتلك. sida waxaa waa haddaad damacsatay amba haddaa niyeysatay inay idishid aniga gacan makuu qaadayo mana ku dilaa ama waxna yani gacan xataa makuu qaadayo dhahay. markaasoo haddana sii wada soxoo dhahay وأنت سوف تكسب إثم قتلي وتخسر الدنيا والآخرة. يعني dembiga dilkaygan waa qaaday adduunya aakhirana yani malihid. marka maalin kamid ah haabiil oo jiifo qaabiil intuu yimid oo dilay. markaasi waxay noqotay dilkaasi waxaa noqday dilka ugu horeeya oo ka dhaca dhulka. markaasi ilaa haddana la joogo qof walba qof dulm u disho qaabiil dembiga leh, يعني qaabiil dembigaasi iska leh. sidoo rasuulka عليه الصلاة والسلام u dhahay لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. صححه الألباني. marka haabiilna wuxuu noqday qofka ugu horeeya oo ku dhinta dhulka oo noqday. marka dadka ma ogeen sida ibn aadanka doo dhintay sida loo duuga ma ogeenin. markaasoo qaabiil wuxuu qabtay walaalkiisoo meed oo xabsiye markaas ilaa raaixadiisa ambiskale oo bedelmatay. markaasuu aad iyo aad ugu shalaayay dilka walaalkiisa oo ugu xumaaday oo ka shalaayay oo ka dacfay yani sidoo shaydaan ugu zaa'id caleeyay. markaasoo walaalkiisoo meedu qaaday woo la socday sidoo loo duugo walaalkiisa ma ka seerin ambiskale sida oo markaasi lama ogeyn si ibn aadan loo duugo ana haabiila noqda qofka ugu horeeyo ku dhinta dhulka. markaasay wuxuu arkay qaabiil markuu socdo walaalkiis meedkan u siiday laba qurbaan ambiskale qurbaanka madmadow iyagoo isdilayaan oo arkay qaabiil hortiisa isku dilayeen. markaasaa mid dilay. markuu dilay kan nool waxaa qaaday yani afkiisa wuxuu ku faagay dhulka siduu u duugo kan kale. markaasuu ciida ku wada shubay. markaasuu qaabiil wuxuu dhahayay sida qur-aanka kariimka noogu sheegay yaa waylataa acjasta an akuuna mithla hada alghuraab fa arwi saw'ata akhi. markaasi qaabiil wuxuu ku daysaday inuu sameeyo wuxuu quraabkaani ambiskale shimbirkaani sameeyay oo sidaas oo u duuga walaalkiisa gacantiisa ku faagay markaasuu duugay sida aayada kariimka u dhahday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من إحداهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ألا إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأروي سوءة أخي فأصبح من النادمين. سورة مائدة waa aayada 27 ilaa aayada 31. markuu ogaaday nabiy allah aadam calayhi salaam qisada ka dhacda walaalkii qaabiil iyo haabiil aad u xanaaqay. marka waxa dhan shaydaanka ahaayeen labadiisa cunug wuu khasaaray. markaasuu aadam wuxuu sii waday dacwada ila allah wuxuuna ka waarin jiray dadka dhan oo markaasi dacwo jir ila allah inay shaydaanka iska naaraan ama iskale shaydaanka sidoo u xun yahay. marka aayada maanta qisada aadam calayhi salaam waxaa ka baranaynaa inaan mar walba oo ku degdegin qaraar qaadanayno oona mar walba oo ku degdegin qaraar oo masiiri ama iskale qaraar oo qof qalad naa gashan weligaa adduunka waxaa ku noolaataa inay madluum noqotid weligaa dhaalim ha noqonin. mar walbana shaydaanka iyo ka zaa'id caleen sida ujeedaan jannada shaydaana aadam iyo xaawo kasoo bixiya aadam iyo xaawo calayhi salaam jannada shaydaana kasoo bixiyay
qaabiil iyo haabiil waxa isku diran waxaa waa shaydaan marka mar walba shaydaanka ilaaha naga qabto. waxaan leeyahay dhammaantiina maanta yacni wax yar waa gagafaye baa laakiin ilaahay ajrahay allah naga wada siiya dhammaanteena. إلا إن شاء الله تعالى قصة قصة حكتة إيه النبي لبات. إن شاء الله سيدا وذا أجري سنة هدا في ستة فيديوغا كومنتي جاك هوس كريب لايك نصار لشير قرين أصحاب تاذا رمضان مبارك أفر وناكسن سحور وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.